waxaan daawadayaal meel walbood joogtaan isi walbood noo daawanaysaan ku soo dhowaada barnaamij gaara oo aan kaga hadlayno faa'iidooyinka uu qaraha u leeyahay qofka sooman bisha Ramadaan. haddaba waxaan si naxariis leh daawadayaal idinkaga codsanaynaa haddii ay tahay markii kuugu horreysay oo aad soo booqato janaalkeena, waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe, like iyo share dhahdid. mowduuca caawa waxa uu yahay faa'iidooyinka uu u leeyahay qaraha qofka muslimka ah ee sooman bisha Ramadaan. Ramadaanku waa bil barakaysan oo ay muslimiinta sanad walba soomaan 29 ilaa 30 maalmood oo xiriir ah. muddadaasi ay muslimiintu sooman yihiin in qofku tabarta u diida ma ahee waxaa si joogta ah miiska afurka aan looga weynin miraha qaraha oo ah kuwa aad ugu wanaagsan qofka sooman. muslimiinta isticmaala qaraha xilliga Ramadaanka waa mid ay caadaysteen, balse waxaa sidoo kale uu raad ku leeyahay diinta Islaamka. Rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxa uu cuni jiray xilliga Ramadaanka qara iyo timir, sida laga soo wariyey Imaam Tirmidhi oo uu ku qoray kitaabka daawooyinkii Nabiga. muslimiinta sooman intooda badan marka ay afurayaan halka ay biyo badan ka cabi lahaayeen waxa ay ka doorbidaan inay qaraha ama xabxabka cunaan ama ay ka dhigtaan sharaab. xabxabka ayaa bisha sooninta lagu jira waxaa si weyn loogu arkaa suuqyada qudaarta lagu iibiyo. mid ka mid ah digtoorada Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Dr. Maxamed Cabdi Gaboose oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee ka howlgasha gudaha dalka Kenya ayaa wax laga weydiiyey dhanka caafimaadka. marka laga eego faa'iidooyinka caafimaad qaruhu uu leeyahay qofka sooman, qaruhu qofka sooman waxa uu soo celiyaa biyaha jirkiisa ka baxay oo biyo ku filan ayuu jirka ka helaa, gaar ahaan dadka marka ay sooman yihiin ama qofka marka uu fuuq baxo. qaruhu ama xabxabka waa cunto fudud oo qofka sooman aan dhibeynin. tamarta qofka sooman ayuu dib u soo celiyaa maadaama biyo iyo tamar wada socda uu ka helayo qofka sooman ee isticmaalaya qaraha. sidoo kale dheefshiidka ayaa qaraha u sahlan in caloosha uu ku ragaadiyo. dhanka kale qaruhu kuma jiro cuntooyinka keena daaca qurunka iyo caloosha qofka inay fadhiisato. waxaa kale uu qaruhu uu leeyahay inuusan qofka cuna ama taydka uusan ka xirin sida cuntooyinka kale. qaruhu waa cunto dabiici ah oo macdan badan laga helo, islamarkaana si aad ah u anfacda qofka sooman marka uu cuno. sidoo kale qaruhu waxaa la sheegay inuu gacan aad u weyn ka geysto dejinta qofka qaba dhiigkarka iyo socodka dhiigga oo uu wanaajiyo. qaruhu dadka qaba cudurka macaan way isticmaali karaan oo waxaa ugu jirta sokor dabiici ah oo qofka sokorta qaba aan wax dhibaato ah u soo gudbinaynin. Dr. Gaboose ayaa waxa uu sheegay in kastoo caddeymo buuxa oo dhanka sayniska ah aan loo haynin, haddana waxaa jira dad aad u yar oo qaraha ka qaada ama uu ku beero laabjeex. wararka ayaa sheegaya in dadka qaar uu xabxabka xasaasiyad ku keeno, waxa uuna dhakhtarku sheegay inay jiri karaan, balse tiro ahaan ay aad u yar yihiin dadka uu xabxabku uu ku keeno xasaasiyadda. haddaba daawade, qaraha ayaa faa'iidooyinkaasi oo dhan ayuu leeyahay, waxaana aad u wanaagsan qofka sooman inuu isticmaalo qaraha marka uu afurayo halka uu biyo badan uu ka cabi lahaa, waayo faa'iidooyin badan ayuu jirka u leeyahay. qofka sooman marka uu isticmaalo qarahana waxa uu ka helayaa tamar iyo faa'iidooyin caafimaad oo aad u fara badan.